Okay, soo dhawaada khiyaari weli waxaan gudaha uga jirnaa duubitaankii fiidiyoyadii la xiriiray dhabar xanuunka. Waxaan kasoo hadalnay mechanical lower back pain ama xanuunka aan darnayn. Waxaan sidoo kale kasoo hadlay sciatica oo wax yara ka baxsan mechanicalka oo mechanicalna noqon karta, non mechanical oo medical intervention u baahana noqon karta. Gadaal ugu laabamayo fiidiyoyadaas oo soo daawada. maanta waxaan ka hadlayaa video kale oo la xiriira lower back pain. waana very common ayada lafteedu, laakiin qaabay uga duwan tahay lower back painkii hore ka soo hadlaya ama dhabar xanuunkii hore ka soo hadlaya jirta. Topican maanta aan rabo inaan ka hadlo waxaa la yiraahdaa lumbar spine stenosis. Spinal stenosis meel walba ka dhici kartaa. Thoracic spinal stenosis ayaa jirta, cervical spinal stenosis ayaa jirta oo qoorta, laakiin midaan waa lower back aan maanta ka hadlayna. marka sida sawirkan aad ka aragtiin normally dadka xanuunkaas qaba isma toosi karaan, caadi uma istaagi karaan, sababtoo ah neerfayaal baxaya unbaa dhabarka ku istaagaya mar alaali markuu qofku toos isu taago. marka calaamadahaasaa lagu gartaa, hoosay u soconayaan. qofkii on dhabarku qalloocnayn oo waxba ka qaldanayn aan toos isu taagi karin. marka inta badan waxyaalahaasaa ka mid a waxyaalaha lagu garto. maxaa kalifa dadka noocaa u badan? inta badan waxaa kalifa degeneration waxaa loo yaqaana ama rheumatismada dhabarka gasha ayaa kalifta. waana process oo slow and progressive ah oo magaranaysaa tartiib siduu usii socaayo kanaaladaas xiraa. Spinal stenosis macnaheedu waxaa waaye spinal cordkii unbaa yaraaday, areadiyaa yaraatay. marmarka qaar waa central oo dhexdu ka yaraadaa, marmarka qaar lateral process waxaa la yiraahdo geesu ka yaraadaa, marmarka qaarna waa intervertebral foramen oo labada vertebral oo labada column inta u dhaxayda unbaa yaraata. markaas waxaa dhacayda neerfayaashaas, waxaasoo dhan neerfayaalay matalaya. neerfayaashaas baxaya unbuu isgaraynayaa hadday gees tahay, hadday iyagoo dhan oo centralka ay tahay gudahana iyagoo dhan u taabanaya. marka qofku muxuu dareemaya? calaamadaha u dareemaya waxaa ka mid a numbness and tingling, cirbada ay ku ordaan lugta. waxaa ka mid a inuu socodku dhibo wax yar markuu socdaba. marmarka qaar waxaa ka mid a in laguhu bararaan oo qofku laguhu bararaan. waxaa ka mid a inuu toos isu taagi waayo, sidii sawirkii aan markii dhawaad idin tusahay, inuu toos isu taagi waayo qofka oo mar walba uu jeclaysto inuu hoosa u fooraro, sababtoo ah markuu hoos fooraro tensionkii ayuu ka qaadayaa spinal cordka oo relief position waay. markuu laakiin toos isu taago pressure badan uu saaraya cordka. degenerationka keenaa niri oo wuxuu u badan yahay dadka agekoodu 60 sano iyo wixii ka badan uu yahay. haddaysan congenital ahayn ama ay trauma keenta aysan jirin ama surgery oo qofka qalliimo hore waxyaalo kale looga sameeyay aysan keenin, dadka yaryar uma badna. dadka da-doodu 60 sano iyo ka koreyday u badan tahay spinal stenosis. marka daawadeedu waa maxay? daawadeedu inta badan marka hore waxaa laga bilaabaa waxaa la yiraahdo conservative care-ka oo physiotherapy iyo stretching iyo waxyaalahaasaa laga bilaabaa. waxaa kaloo la siiyaa kaalmaatiyaal sida maaragtay daawooyinka oo inflammationka anti-inflammatoryga iyo muscle relaxantiga daawooyinka ahaa la siiyaa. hadduu xoogaa daran yahay neuropathic medicationka oo neerfayaasha ah waa la siiyaa oo dhakhaatiirtu way siiyaan. intaas waxaa sii dheer oo haddii intaasoo dhan uu ku maaragtay symptomku ku relief garay waayo, waxaa la yihahdo epidural injection. xanuunada chronic pain clinic meelaha qofku tagaa. wadamada qaarkood waa orthopedic specialist oo spineka. wadamada qaarkood hadda Canada aan ugu joogan ka hadlayna waxaan u dirnaa chronic pain clinic aan u dirnaa. marka chronic pain clinic marmarka qaar waxay ku dhiftaan epidural injection, cirbaday ku dhiftaan xoog loo xanuun baabi'iya oo corticosteroid ah. marmarka qaar daawooyin caadi oo afka laga qaada ay siiyaan oo tabletisa. marka waxaasoo dhan marka hadday shaqay waayaan oo xaaladdu ay daran tahay, waxaa la yidhaahdo decompression surgery u sameeyaan oo waxyaalihii columnkaas soo ciriiriyey ay ka jaraan. maadaama orthoroides ay tahay waxa keenay, macnaha areadan oo dhan lafa dheeraad oo yaryaro ay kusoo baxaan oo maaragtay osteophytes la yiraahdo geesaha u kala baxa, kuwaasay ka jaraan. marmarka qaar laminectomy wax la yiraahdo ku sameeyaan oo lamenkay jaraan. adigu waa maaragtay way kala duwan tahay, laakiin waa stageka ugu dambeeya markii waxyaalaha kale dhan waxba ka qaban waayaan.
waxyaalaha kale oo dadku ay maaragtay conservative ka mid ah waxa waaye qofka in la educate gareeyo oo loo sheego positionkan sidaan maaragtay sariirha ku aruurin soco oo maaragtay dhaqdhaqaaq more flexion based exercise oo sidaan oo kale oo qofku maaragtay hoos u foorarsanayo oo tartiibkaasana samee kuwa noocaan oo extension-kana ka fogow waxyaalahaas haddii ilaahay kuro prolonged work ama socod dheer ka fogow laakiin socodyada gaagaaban dhan soco marka education la yidhahdo kaasuna waa education-kana qofka la baro waxa ay tahay sababtoo ah inaad xanuunku waxa uu yahay ku haya in aad anatomically iyo nooc walba aad u ogaato iyo root cause-kiisa iyo waxa increase gareeyaha iyo waxa decrease gareeyaha waa qayb daaweynta ka mid in maaragta loo sharaxo bukaanka marka education la yidhahdo waa laga educate gareeyaa marka daan gadaal ugu soo laabano hore waa uga soo hadlay symptomska waxaa ka mid ah inuu like radiating to one leg or both leg inuu xanuunka u safrayo cramping and burning sensation kulayl waxyaalaha iyo ache in cirbada iyo lagu mudmudayo inaad dareento numbness balancegu inuu ku dhibo oo toos u istaagi weydo socodku inuu ku dhibo waxyaalahaas oo kale extensionka horaan u sheegana dhabarka saas uu ku dhibo risk factorska waxaa ka mid inuu qofku 60 sano dhaafay history of back surgery waa ka soo hadlay occupational dadka qaarkood laborka ama shaqada culculus oo qaadayo qofku way keeni kartaa geneticna waa keeni kartaa family history of spinal stenosis hadduu qofku leeyahay waa dhacdaa iyaduna inuu genetic ahaan u yimaado red flag maxaa ka mida oo qofku hadduu arko immediately in isbitaal loo diray ay tahay cardiac wayna ball bladder dysfunction inuu qofku marka uu musqusha iyo isticmaalayo dareenkii uu waayo oo hadduu maaragta tusaalan kaada iska tiraha kale uu dareemi waayo spinal infection haddii looga shakiyo traumatic hadday taho spinal fracture ay jirto oo qofku uu soo dhaawacmay oo kale calaamadihii spinal stenosiskana uu qabo waa in emergency loo diraa diagnostiga iyo markay noqoto waxyaalaha oo lagu ogaaday oo saxda MRI-ga ugu fiican hadduusan MRI-gu available ahayna CT scan-ka care-ka waa ka soo hadalnay iyo exercise-yada iyo waxyaalahaas haddii conservative care-ku uu shaqay waayadana waa ka soo hadalnay waxyaalahaas oo inuu isbitaalka iyo markaasi daawada iyo kadib qalliinka iyo waxyaalahaas waa ka soo hadalnay site-kan aan idin tusaay laftiisa anigaa qora haddaad fiirido spinal care mobile clinic-a la yihahdaa aniga ayaa qora waa website anigu aan qora laakiin iyagoo dhan waxay ku qoran yihiin ingiriis marka waa isagiyo video yaal idinkugu bedelay waa kan midkee kan weli video kamaana soo duubin arthritis ama rheumatismada jilbaha iyo sinaha gasha kan waa sayaarika waa ka soo hadlay kan waa understanding mechanical lower back pain-ka oo iska fudud waa ka soo hadlay kan kamaana soo hadlin iyo lifestyle-ka guud buug dhanaan ka qoray marka website-kan ingiriis ku qoran yahay aniga qoraa isaga laftiisa qofkii ingiriiska akhri kara oo fahmaya waa artikaladeeda iyo waxyaalahan qora halkaa waa kala soo soco kartaa marka waa mahadsantihiin dhegaysadkiina iyo inaad la socotiin weli waa ku jirnaa weli fiidiyoyo kalaa jirto oo aan soo duubayo oo ay ka mid tahay rheumatismada dhabarka gashay iyo waxyaalaha ay tahay iyo heerarka kala duwan hadda intii aan soo duubay rheumatismada si toosa ugamaanan soo hadlin laakiin waxyaalaha ay keento kalaan ka hadlay marka ilaa iyo kulan dambe see you soon and thank you